السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan waxaan ku sameynayaa muuqaalkii ugu horeeyay ee aan u sameynayo qaybta YouTube-ka Somali Motivation Podcast. Sababtoo ah in badan oo idin kamid ah ayaa soo codsatay inaan u sameeyo muuqaal. laakiin intiina kale ee ka dhigaysata telefoonka gacanta ama ka dhigaysata iTunes-ka, Spotify-ga, Podbean-ka, Google Play-ga iyo dhammaan ababka aad ka dhigaysataan podcast-ka sideedii ayaa ula socon doontaan. caadigeedii baana u dhageysan doontaan insha Allah. laakiin waxaan sameyn doonaa inaan kusoo lifaaqo qaybta YouTube-ka muuqaalkan oo aan ahayn mid gaara laakiin waqtiga stuudiyaha podcast-ka aan ku jiro insha Allah aan duubi doono muuqaalkaas aan soo raaciyo. mawduucan maanta ka hadlaynaa waa mawduuc aad u kooban oo fudud una gaaban laakiin aan isleeyahay waa muhiim. waa mawduuc ka kooban 7 qodob oo ah sababaha keena guuldarrada amba sababaha qofka dib uga dhiga inuu gaadho hadafkiisa iyo yoolkiisa. qodobka koowaad baa ah ka go'naanshiyaha inay kaa go'an tahay inaad go'aankaaga qaadatay waa doonayso inaad gaadho hadafkaaga siday doontaa kuu qaadatay. inuu qofku go'aan qaata way fududahay laakiin ka go'naanshiyuhu waa arrin kale. tusaale ahaan inaad jaamacadda gashaad go'aan ku gaadhay qofba kaasoo horbaxo wuxuu ku yidhi jaamacadda xilligan maxaad ka galaysaa waad habsaantay amba waad guursatay amba waad gawday wuxuu ku siiyey cudurdaar amba caddayn uu kuu sheegay inaanay micno ku sameyna faa'iidana kuu lahayn aanaad ka guuldarayso mise guulna aanaad ka gaadhahay. haddii aad go'aan qaadatay laakiin ka go'naanshiyo aanad lahayn oo aanay kaa go'nayn saameyn buu kugu yeelanaya qofkii. laakiin haddii ay kaa go'an tahay waad dhegeysanaysaa dantaada ayaad ka raacaysaa hadafkaagii baad gaadhaysaa sababtoo ah sabab baa jirta marka hore waad go'aansatay. haddii taa micneheedu maa qofka markuu kula taliya inaanad maqlin laakiin inta badan dadku waxay kuu sheegayaan waxa aad awoodiyo waxaanad awoodin taana adiga ayuunba og. qofku wax laga yaaba inuu kaala taliyo waxaan weligiiba sameeyaa asagoo jaamacadba ka bixin waxba dhiganin macaanka aqoontu leedahay aan garanahayn inuu mataqaanaa kugu yidhaahdo ma gaari karta ama ma samayn karta ama micno ma samaynayso. marka qofku markuu go'aan gaadhayo waa inuu isweydiiya arrintan ma kaa go'an tahay si kasta oo ay kaaga hortimaado caqabadii diyaar mooto inaad ka baxdo oo aad gaadho. qodobka labaad ayaa ah inaad naftaada aaminto. qofka haddii ku yartay inuu aaminaanshiyaha uu naftiisa aaminsan yahay haba yaraatee go'aan macnaha haba yaraatee hadaf nololeedu gaari karaa ma jirto. haddii aanad aaminsanin inaad gaari karto saad ku gaadhaysaa rigaalaha ma gaadhaysay. qofka noocan oo kale ah inta badan waxaa lagu gartaa waa qof jecel dadka inuu raali geliyo. waa qof ka baqda inuu saaxiibadii ka dhex baxo oo mid walba madaxa ruuxa mid walba jeclaysta inaanay isku dhicin ee uu dadka oo dhan u qoslo oo dadka oo dhan wada marxabiisiyo oo dadka oo dhan wada raali geliyo. taas waxay keenaysaa inuu qofku uu ka tanaasulo waxyaabihii uu aaminsanaa inuu qofku ka tanaasulo waxyaabihii isaga udubdhexaadka u ahaa inaad dadka oo dhan raali geliso. dadka oo dhan haddaad raali geliso qofka keliya taana raali gelin waa naftaada. dhammaan dadkoo dhan waxay kaa gaadheen tanihii ay lahaayeen laakiin qofka aan dantiisa gaadhin waa adiga. qofka dadka raali geliya waa qof aan asagoo is aaminsanayn in la aamini karo naftiisana aaminsanayn is aaminaantuna ay ku yar tahay. taasina waa sabab weyn oo guuldarro keeni karta amba sabab noqon karta inuu qofka hadafkiisa gaadho waayo guuldarraysto. qodobka saddexaad baa ah qof cudurdaar badan amba inaad wax kasta u cudurdaarto amba inaad tiraahdo wax kasta waa caadi aad normalize karayso situationka markaad wax ka qaban inaad normalize karayso. tusaale ahaan haddii aad hadaf lahayd oo hadafkaa gaari kari weydo amba aad ku guuldaraysato qofkaas halku guuldarradiisa wax ka baran lahaa wuxuu haystaa liis dheer wax ka odhanaya sababtaasaan u gaari waaye kaasaan u gaari waaye hebel iyo hebel baa ka mas-uulahaa haddaan intaasaan dhici lahayn waan gaari lahaa haddaan caynkaasaan dhici lahayn waan gaari lahaa. dhammaanna cudurdaarkaas waa miduu isagu xallin karo haddii uu doonayo inuu xalliyo. taa waxa kaloo dhinac socota inuu qofku normalize garay amba halkan ku nidhaahno waa caadi kaasna waa caadi waxan waa caadi uu qofku uu caadiyeeyo wax kasta ama uu normalize garayo. tusaale ahaan inuu qofkaasi tusaalihii hore soo qaadanay ahaa inaad jaamacad qortada jaamacadiisa qor weydaan baad bahalin weyd macnaha gaari weydo inuu normalize garayo si aan guilty u dareemin yidhaahdo qofka hooyo markuu noqdo way ku adkaataa jaamacadda inuu ku noqdo. qofku markuu shaqo kala hayo way ku adkaataa jaamacadda inuu tago. qofku asagoo soo qaadanaya markhaatiyaasha kale ee la midka ah hadafka
gaari waayey oo yiraahdo hebel way gaari waayey waa caadi way dhacdaa oo uu normalize gareeyo qofku laakiin waxa normalize gareeysa iyo cudurdaar badan samaysaa waxay calaamad weyn u yihiin guuldarrada waxaana ku horseedayaan guuldarro weyn qodobka afraad ayaa wuxuu noqon karaa inuu qofku iska indho tiro khaladkiisa khaladku waa wadada guusha inaad khaldanto oo khaladaad badan samayso oo wax ku guuldaraysataa waa wadada guusha laakiin goorma ay wadada guusha tahay waxa wadada guusha tahay marka aad khaladkii kugu dhacay ama khaladkii aad gashay aad wax ka baranayso adigoon caadi ka dhigahayn cudurdaar noo samaynahayn aad odhanaysaa waxaasaa dhacay saasay u dhaceen sababtan u gaari waayay hadafkaygii iyo yoolkaygii waxay ahayd taas khaladkaasaan galay mar labaad ma geliyo waa cashar qiimo badan waxay caddayn u tahayna waddadii saxdaa hayso waxay hubaal u tahay inaad guulaysanayso marka qofkani waa qof aan khaladkiisa waxba ka baran ambaba iskaba indha tiraba gebigiisaba asan keenahayn macnaa inuu qofku isbedel sameeyayna wax ka bartayna hore u socdotaana qodobka shanaadba ayaa qodob aad iyo aad runtii u muhiim ah aanan u malayn inuu yahay labada qodob u muhiimsan qodobadan oo dhan uu ka mid yahay waa discipliinka qofka inta badan discipliinku ku yari wuu ku darasta laakiin discipliino maxaa tahay discipliinku waxa weeyaan waa habka aad naftaada ugu tababarto raacidda habdhaqanka aad dejisatay adigu oo kaa ilaalinaya wax kasta oo ku jeedinaya oo hadafkaa kaa jeedinaya oo kaa ilaalinaya macnaa discipliinku wuxuu kaa ilaalinaya inaad hadafkaagii joogtayn weydo inaad kolba ka jeesato inay wax kale ku qalandaaraan tusaale ahaan waxaad dejisatay jadwal waxaad tidhi sabtida axadda isniinta salaasa waxaasaan qabanayaa jimcaha ayaan gelayaa social media dadka la sheekaysanaya waxyaabaha aan adiga micno ku samaynahayn amba aan goolkaaga kuu dhaweynahayn ee aad ku nafisayso ambaad waqti fiican ku qaadanayso hadday sheeko tahay hadday filina daawanayso haddaad masaajidka gelayso wixii adiga ku gaara waxaad go-aansatay inaad jimcaha qabato amba axadda qofba halku ku nool yahay laakiin maalin walba waad ku jirtaa maalin walba waad dhegeysanaysaa maalin walba facebookad gelisaa maalin walba youtubekad gelisaa maalin walba discipliinkaaga kamaad rumayn goolkaagii ma gaadhaysaa hadafkaagii ma gaadhaysaa yoolkaagii ma ka rumaynaysaa maya waayo discipliinka ayaa kugu yar qofku waxa uu samaysta amba habka uu dejisto waynu raacaa ee aad adigu doonayso inaad ku gaadho yoolkaaga discipliinkuna maaha wax go-aan waa qof kasta iyo wixii isagu naftiisa u dejiyo habdhaqanka uu rabo inuu ku noolaado haddii uu ka dhabeeyo u gaadhaya goolkiisa haddii kaana waxqabad weyn oo guuldaro keenaysa qodobka kale ayuu wuxuu yahay wax afka qalaad lagu dhahdo self-esteem amba poor self-esteem inuu qofka uu ku yar yahay oo uu ku hooseeyo qiimaynta iyo ixtiraamka uu naftiisa u haya waa wax kalsooni darrada u eeg laakiin kalsooni darradii runtii maaha xaqiiqa qofka kalsooni darrada haysa inuu isagu isjeceliyo is ixtiraamo laakiin unu isku kalsoonayn kan qiimayntii naftiisa iyo ixtiraamkiiba ku yar taasoo keenaysa kalsooni darra iyo waxyaaba kasii daraan haddii aanad naftaada ixtiraamin oo aanad qiimaynin guul ma gaari kartid tusaale ahaan kambani baad ka shaqaynaysid 10 sano u dambeeyay qofna halkiisii ma joogo qofku amba hore ayuu u socdaa hadduu meel sare taagnaana wax laga yaaba meeshiisu inuu iska joogo waa meel uu dhaafaa ma jirto halkii ugu sarreysa waaba kambaniga jooga haddaanu ka tegin oo kambani ka fiican tahay laakiin haddii ay maalinba soo baxdo shaqo taadii ka sarreysa oo aad qaban karto laakiin aanad adigu codsanin oo dadka kala codsadaan mar walba sabab baa jirta haddii aanad sababta garanahayn waayo waxa aad aaminsan tahay inaanad u qalmin inaanad kasoo bixi karin naftaada qiimaha intaa leeg baanad u haynin naftaada qiimihii aad u haysay waa halka aad fadhido haddaad dalbato oo aad dhacdo haddaad dalbato ood weydo haddaad dalbato ood ku guuldaraysato taas waa caadi waayo guuldarradu waa qayb nolosha ka mid ah inaad wixii weydaa waa qayb nolosha ka mid ah waa wadadii guusha iyo horumarka laakiin haddaanad kuba fikirinba inaad dalbato haddaanad kuba fikirinba inaad meesha taaganta hore uga socoto waayo laga yaaba inaad aaminsan inaad u qalantidba inaad macna self-esteemkaaga hooseeyo oon ixtiraamka intaa laga qiimaynta intaa laga naftaada u haynin waa sabab kale oo iyadna keenaysa inaad qofku guuldaraysto ama aanu horumar badan samaynin laakiin dhanka wanaagsan marka laga eego qofku taa uu iska biin karaa
kalsoonidu waa wax la barto oo qofku naftiisa ku tababaro inuu kalsooni badan yeesho inuu naftiisa ixtiraamo bay kaa muuqanaysaa bulshada u muuqanaysaa bulshadana meeshaad ka taagnayd meel ka sareysa ayaad gaaraysa dadkuna saa adigu isku aragto unba runtii ku arkayaan marka maaha waxuu qofku ka warwaro waxaweye inaad ogaato barato usoo jeesato naftaada ku tababarto dad badan oo dadku ixtiraamaan amba weyneeyaan ayaa laga yaabaa inay yihiin dad kalsooni darro badan naftooda ku qaba cabsada in dadka ka hor hadlaan ka cabsada inay dadka khudbad kasoo horjeediyaan ka cabsada laakiin naftooda ku tababaray ku khasbay isriixay wixii aad naftaada ku riixday eed ku tababarta maalinta ka dambeysana naftaadu way la qabsanaysaa kadibna marka dambe waad master garaynaysaa waxaad noqonaysaa qof macnaha wixii ku fiican oo loo arko ka muuqato qodobkan 7 ayaa ah mid aad iyo aad muhiim oo nolosha guud ahaan u muhiima marka laga yimaado mawduucan maanta ka hadlayno oo ah wadada guusha iyo sababaha guuldarrada keena ee qofku inuu iska ilaaliyo qodobkan ayaa ah inuu noqdo qofku midan mas'uuliyadiisa qaadan waxa ka mid ah khaladkiisa oo aanu qaadanin guuldarrada ku dhacda qofkaas oo aanu aqbalin hadii jiraale mataqaana aanu macna waa qof aan waxba aqbalin haduu khalad galo haduu khalad ka galo haduu wax sameeyo mas'uuliyad kasto asaga saaran wax kasto oo khaldama wax kasto oo dhaca asagu ma qaadanayo asagu ma uu samaynin in mas'uuliyadda qaadan weyda waxay keenaysaa guuldarro keenaysaa dadkii aad la shaqaynaysay bulshadii aad la noolayd cidii kugu xeernayd iyo naftaadiiba waxa kaa lumaya yoolka waxa kaa lumaya waxaad ku fiicantahay waxaad ku xuntay waxa kaa lumaya wixii aad sixi lahayd iyo wixii aad wixii aad sixi lahayd ee kaa xuma iyo wixii aad ku wanaagsaneyd intaba way ka xumaanayaan waana calaamadaha ay leeyihiin dadkani waxa ka mid ah in wax walba ay ku xidhaan nasiibka oo yidhaahdaan wixii dhacaya way dhacayaan iyaga macnaha wax kastaba qadarka ilaahay wuu jiraa waa aaminsanahay laakiin hadda tira wixii dhacaya way dhacayaan wixii wax kastaba sidii loogu talagalay bay noqonayaan wax kastaba waxba kama bedeli karo وقف أن أقبلها المسؤولية وكلها نرشيسة يوحي يسوي صحي كارلها وده برتين كهذا يستكتر كارو وكشيرة وده دين على ده يستكتر وده ما تكار كل ما نسين كليلا حبها موضوعنا ما نتمرق هالكاسين كسوق بكميننا إن شاء الله وإنه أسبوع الضمبة وحرجيني نقول حدناتان وحي فكر كينا هي وحي عقبتان سيد عادي قاعد يقصوا درتان إيميل كسمان motivation.com يقصوا درتان أمبارح كومنت كحكوا وصلت كرتكتان أو سبسكرايب كريسان سعيد وصعتان معلومة البويحي أن سوقلنا أسبوعية صعدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا رجيني أقول يا هرمر حاسوسة وحكستوا أبودان ولا شاذنا قعدت هذا يدكم بدري كتا وحكستا قعدت هذا يكبر.